daawada ku soo dhawow casharkii koobaad ee luqadda Turkiga anagoo idinku bari doono waxyaabo kala duwan oo Turkida ku saabsan ha ahaato dhaqanka Turkida ha ahaato magaalooyinka Turkida maanta casharka waxaan ku soo qaadanaynaa marka ugu horeysa oo aad la kulanto Turki ama qof ku hadla af Turkiga waxyaabaha kamid ah kula hadli karto waxyaabo kamid ah ayaan ku soo qaadan doonaa intaynan casharka bilaabin daawada subscribe garee si aad ula socoto casharada dambe ee xiriirka noqon doona oo aad kala socon karto YouTube channel-kan haddaba aynu bilaabno casharkan haddii marka ugu horeysa la kulanto qof Turkiya ama luqadda Turkiga ku hadla waxyaabaha aad ku oran karto waxaa kamid ah merhaba oo Carabi ka timi innaka talo maxaa luqadeena lagu yiraahdaa marxaba ayaan oranaa oo Carabi waayo qof walba uu fahmaya marxaba ama waxaad ku oran kartaa salaam waxyaabaha kale aad oran karto waxaa kamid ah salaanta islaamka salaamun alaykum naasilsin oo micnaheedu yahay see tahay ama iska waran ama ma fiican tahay luqadda Soomaaligu waa luqad qani ah waxyaabo badan baa lagu yiraahdaa naasilsinis oo micnaheedu yahay sidee tihiin ama waxaad ku oran karaysaa qofku markuu ka weyn yahay ama qof aad ixtiraamayso uu yahay oo aad xushmeyn qofka markaad ku tidhaahdo naasilsin wuxuu kugu oranayaa ama naasilsinis iyim buu kugu oranaya iyim waan fiicanahay waan wanaagsanahay iyim ben iyim anigu waan fiicnahay anigu waan wanaagsanahay anigu waan ladanahay iyim anigu waan fiicnahay qofka markuu yiraahdo anigu waan fiicnahay wuxuu ku weydiinayaa yaasen adiguna waxaad ku jawaabaysaa adiga oo luqadii Turkiga ku hadlaya bende iyim waan soo aragnay bende baa cusub ninka bende iyim anigu waan fiicnahay aniguba waan fiicnahay isagoo ku mahadnaqaya ayuu ku oranaya teşekkür ederim waad mahadsan tahay ama teşekkürler waa isku mid teşekkür ederim iyo teşekkürler mahadsanid teşekkürler rica ederim adam mudan rica ederim adam mudan Türkçe alfabe A B C D E F G yumuşak G H I
J, 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 K, 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 Le, 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 Ne, 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 O, 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 Ö, 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 P, 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 Re, 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 Se, 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 She, 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 Te, 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 U, 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 Ü, Ü, Ve, 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 Ye, 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 Z, Z, Z. That's all for today. See you next. maanta casharka waxaan kusoo qaadanaynaa sida qof af turkiga magaciisa loo weydiiyo. luqadda turkiga waxaa loogu hadlaa laba hab. habka koobaad oo ah sida rasmiga ah iyo habka labaad oo ah si aan rasmi ahayn. markaan leenahay sida rasmiga ah waxa weeye marka aad la hadlayso dadka kaa waaweyn ama dadka aad ixtiraamayso, aad doonayso inaad tusto ixtiraamkaad u hayso. sida aan rasmiga ahayna waxa weeye marka aad la sheekaysanayso caruurta kaa yaryar ama asxaabtaada ama qof aad isku da' tihiin. haddaba qof kaa weyn sidee baad u weydiin lahayd magaciisa? waxaad odhanaysaa adinisne, adinisne, adinisne magacaa, adinisne. waxaa jira dhowr hab oo lagu yidhaahdo magacaa. haddana waxaad odhan kartaa adoo luqadii turkiga ku hadlaya adinis nedir, adinis nedir, adinis nedir, adinis nedir. magacaagu waa maxay? isminis nedir, isminis nedir. ad isim, ad isim. magac weeye micnaheedu labadaa waa isku micna. ad iyo isim waa magac. isim markaan leeyahay markiiba dhigtaada waxaa kusoo dhacaya al ism oo ka timi luqadda carabiga. waa isku mid isim iyo al ism ee luqadda carabiga. magac weeye. inis, 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 inis. waxa weeye dabagalayaal oo af soomaali waxaa lagu yidhaahdaa saddexan. nadir, ne, labadaasuna waa isku micno. waxaan ugu jeednaa nadir waa maxay, ne maxay. nadir, ne waa maxay iyo maxay ayaan ka wadnaa. haddaba aynu soo wareegno sida aan rasmiga ahayn. sideeba qof kula da ah aad u weydiin lahayd magaciisa? adin ne, adin ne, magacaa, adin ne, magacaa. adoo luqadii turkiga sii wata waxaad odhan kartaa haddana adin nedir, adin nedir. magacaagu waa maxay? ismin nedir, ismin nedir. magacaagu waa maxay? isminne. magacaagu waa maxay? markaad isdhaafsataan magacyadii waxaad odhan kartaa adoo sii wata luqadaadii turkiga tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum. farxad bay ii tahay inaan ku barto weeye micnaheeda, laakiin badankii waxaan isticmaalaa barasho wanaagsan. tanıştığımıza memnun oldum. isagoo kuu jawaabayo qofkii turkiga kugula hadlayay ayaa wuxuu odhanayaa ben de memnun oldum, ben de memnun oldum, ben de memnun oldum, ben de memnun oldum. anigaba farxad bay ii tahay weeye marka toos loo micneeyo, laakiin inagu waxaan isticmaalnaa barasho la mid ah, barasho la mid ah. maanta casharkeena afaraad ee luqadda turkiga waxaan kusoo qaadan lahayd si aad qof af turkiga ku hadla aad u weydiin kari lahayd inta sana uu jiro.
haddaba casharkii aan gudo gallo laba nooc ayaad u weydiin kartaa qofka af turkiga ku hadla habka koowaad oo ah sida rasmiga ah, habka labaad oo ah si aan rasmi ahayn. haddii aad casharadeeda hore soo daawataan nala socoto waad fahmaysaa waxaan uga jeedno sida rasmiga iyo sida aan rasmiga ahayn. marka aynu bilowna casharkii. kaç yaşındasınız baad odhan karaysaa. kaç yaşındasınız, kaç yaşındasınız. markuu qofku kaa wan yahay ama aad ixtiraamayso waxaan ku hadlaynaa afkii ixtiraamka. ama sidoo adoo isticmaalaya luqadii turkiga waxaad odhan kartaa yaşınız kaç, yaşınız kaç. sida aan rasmiga ahayn haddaba aynu gudubno. waxaad odhan karaysaa kaç yaşındasın, kaç yaşındasın. maxay ku kala duwan yihiin? kaç sinis iyo sin, tii hore sinis bay ahayd, tanna sin keliya weeye. marka marka aad asxaabtaada iyo dadka aanad ixtiraamayn aad la sheekaysanayso ama aad af turki kula hadlayso. kaç yaşındasınız. waxaad kaloo odhan karaysaa yaşın kaç, yaşın kaç. maxay ku kala duwan yihiin? inis tii hore ayaa halkan waxay noqonaysaa in keliya. yaşın kaç, yaşın kaç. sa'daa yare hoos u qalocda haddii aad alfabeetka daawatay turkiga waxaa loo akhriyaa sha. yaşın kaç, yaşın kaç. kaç micnaheedu waxa weeye imisa. kaç imisa. yash waa da ama inta sano uu jiro qofku. yash waa da. indasınız, indasın, inis iyo in. intuba af Soomaali waxaa lagu yidhaahdaa saddexan ama dabagalayaal. saddexan ama dabagalayaal ayaa lagu yidhaahdaa af Soomaali. waxa aad kaloo marka aad rabto inaad qofkii u jawaabto luqadda ama su-aasha ku weydiiyey ahayd kaç yaşındasın imse jir ayaa tahay, markuu qofkii ku weydiiyo waxaad odhan kartaa ben, dabeedna tiradii baad isticmaalaysaa, yaşındayım baad raacinaysaa. yaşındayım, ben yaşındayım. tusaale ahaan ben 18 yaşındayım, ben 18 yaşındayım. ben oo ah anigu 18 yaşındayım. 18 micnaheedu waa 18. waxaad kaloo adoo sii wata luqadii turkiga markuu qofkii aad weydiiso kuu sheego intuu jiray waxyaabaha kale kusii odhan karta waxaa ka mid a gençsiniz. sida rasmiga ah gençsiniz oo ah dhalinyaraa tahay. gençsiniz. waxaad kaloo odhan kartaa yaşlısınız, yaşlısınız. sida aan rasmiga ahayn gençsin, gençsin ama yaşlısın, yaşlısın. oo waad gabowday micnaheedu weeye ama duq baad tahay haddaan u isticmaalo af Soomaaligii ciyaalka xaafadda. yaşlısın. haddaba wixii aad qabto su-aal ah waxaad noogu soo qori kartaa hoos adoona weydiinaya wax kasta oo aad rabto in lagaa siiyo faahfaahin. waxaan idin leenahay guurashurus casharkaygan cashar. bir, bir, iki, 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 üç, üç, üç. afar waxay noqonaysaa dört, dört, dört. shan, beş, beş. lixna waxay noqonaysaa altı, altı, altı. yedi waa toddoba. yedi, yedi, yedi. sekiz, sekiz oo ah sideed. sekiz, dokuz, dokuz oo ah sagaal. on, on, onna waa toban. dört araba. dört maxay ahayd? afar bay ahayd. arabana micnaheedu waa gaari. dört araba, afar gaari. dört araba, afar gaari. on sandalye. on waa toban. on sandalye. sandalyena waa kursi.
10 waa 10 20 waa 20 30 30 kirk 40 50 konton 60 lixdan 70 toddobaatan 70 waa 70 80 doksan 100 boqol aan u nimaadno qaybta kale 50 kişi 50 maxay ahayd aynu soo qaadanay 50 konton bay ahayd kişi waa dad ama qof 50 kişi konton qof 80 masa 80 maxay ahayd isku day inaad garato 80 waa 80 masa waa miis 80 miis 80 masa fadlan adigoo mahadsan waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad subscribe garayso dabadeedna aad beel ka qaraacdo si aan casharo dambe kuu dhaafin waxaad su-aal qabtana xagga hoose ayaad nagu soo gudbin kartaa adoo mahadsan dhammaantiinba waxaan idin leenahay gelecek dersimize görüşürüz.